maalin dhaweyd waxaan sameeyey gabay yar oo anoo iska joogo hoteelada magaalada ka mid ah yaa waxaa dhacay waxaan arkay madaxweyne hore oo safar galay oo baxay oo magaalooyinka waaweyn ka mid ah tagay marka madaxweynihii waa la soo dhaweeyey waana qurux badneyd sawiradii iyo markaan arkayaan waxaan siri warnay oo tix yaroo gabaya ama ka tirisaa marka waxaan rabaa asxaabta inaan tixdii yarayd la wadaago waxayna qayb ka tahay in xisbiyadeennu ay wax iska sheegaan hadda wixii ka dambeeyo oo la istoosiyo madaxweyne xasanow markaad xilka haysay maamulo xalaal ah xiska maad geline xisaabtii khaladee xariifkii waa baxyo xariifku waad taqaanaan oo maleyna xariifkii waa baxyo xaafna waa iska xijaaban xaajigaan aad la joogto ninku waa siyaasi waa axmed madoobe waaye xaajigaan aad la joogto xagaaga dambaa xisaabtiisu xirmee doorasha ku soo socoto xaajigaan aad la joogtana xagaaga dambaa xisaabtiisu xirmee xasuusta naga daa waagii hore aan soo xasuusinin xiltanka iska dhaaf xaakimaa waxbaxshe marka gabaygaas yarkaa waxaan rabay aan dhac ka siiyey laakiin asxaabtii taageersaneed aaday iila dagaalameen waana fiican tahay yacni inaan xisbiyadu hadda ka bacdi wax iska sheegaanaan rabnaa tan kale waxaan rabaa in loo hiiliyo dhallinyarada xisbigan waa xisbi dhallinyara axsaabta kale waxaan ka rabaa inay sida xisbigan ay sameeyeen lasoo hormariyo dhallinyarada doorashooyinaa socdo koonfur galbeed waxaa ku xiga puntland waxaan aad u jecelnahay inaan aragno madax dhallinyaro ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo dhallinyaro aan rabnaa waxaan ka rabnaa si gaara puntland waxaan leenahay puntland waxay tiraa waxaan nahay hooyada maamul goboleedyada hadda waxaan leenahay hooyada maamul goboleedyada waxaan ka rabnaa dadka tartamaya wiilka ugu dhalinta yar inay soo saaraan oo madaxweyne ka dhigaan puntland waa ku celinaa waxaan ka rabnaa qof dhallinyaro ah inay noo keenaan madaxnimada koonfur galbeed sidoo kale aan uga rabnaa laakiin koonfur galbeed hadday hadda keeni waayaan waxaan rabnaa marka dambe inay noo keenaan laakiin hooyadaan rabnaa in lagu daysano dhinacaasna waxa waaye waa dhinaca puntland waxaan rabnaa xisbiyada wuxuu sheegay guddoomiyaha xisbiyada soomaaliyeed saaxiibkay timajala asagana dhallinyarada isku daray marka aniga aadaan xisbigan iyo xisbiyada dhallinyarada aan xubin uga noqon karaa saaxiibkay timajala wuxuu yidhi xisbiyadu waxay gaarayaan 30 xisbi dalkeenna ma aqbali karo 30 xisbi waa beryahan aniga xataa waa isgaabinaya xisbigan hadda haldoor waa wadnaa waa dhismahaa wuxuu rabaa weli ma isdiiwaan gelin waxaan fiirinaynaa warbal ama dadkii la isku keenaa waxaan rabaa xisbiyada meeshaan joogo 30 xisbi dal 12 milyan ma aqbali karo waa dhib ceebay nagu tahay xataa waxaan rabnaa in from now xisbiga shacabka iyo xisbiyada kaloo fadhiyo ay bilaabaan inay wada hadlaan oo midoobaan hal xisbi oo weyn la soo saaro laba xisbi ay noqdaan saddex ka badan dalkeenna ma aqbali karo waxaan ka codsanayaa baarlamaanka Soomaaliya qaab kaloo lagu sii adkeyn karo xisbiyada inay xisbiyo yar oo tayo iyo tiro leh oo murqo leh inay noqdaan waxaan rabnaa xisbiga shacabka oo kale inaan ku faani karno tiradiisa la yiraahdo wallahi wuxuu haystaa 100,000 oo qof 200,000 oo qof oo shacabka ka tirsan in la yiraahdo xisbiga kalena 200 oo kale oo haysto 500 ka badan siyaasadda inay ku jirtaba ma qumanaba xataa 500 badan waxaan codsanayaa in laga shaqeeyo midnimada intaasaan ku soo gabagabaynahay mar kale aan u hambalyeynaya xisbiga waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto xisbigan iyo xisbiyada kaleba Soomaaliya toosoo la qaado Soomaaliya toosoo Aqui